halkani waa qubanaha TV kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo kuwa caalamka qodobada daaban doontaana waxaa kamid ah khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Dabageed oo soo shacbaxay xilli maalinnimadii shalay uu shaqo joojin ku sameeyay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle wasiirka caafimaadka maamulkaasi oo uu sheegay in lagu helay arrin musuqmaasuq ah iyadoo gobolka Shabeellada Dhexe ay ka soconayaan heshiisyo la kala dhaxdhigayo qaar kamid ah beelaha ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararkii ugu dambeeyay khilaafkaasi iyo waxyaabaha salku ku hayaan saaxiib aalidii soo gudbin doona qodobada kalena waxaa kamid ah taliyo hore ee asluubta Soomaaliya oo hadal weyn ee ka soo saaray dagaalada ka soconaya gobolada Bay iyo sidoo kale deegaano kamid ah Koonfur Galbeed isagoo oo hanjabaad hawada u mariyay beesha Hawiye oo uu sheegay in wax kasta oo xun beesha Raxween ay dusha ka saarayso wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale codka ee taliyaha saaxiib aalidii soo gudbin doona waa Shube qodobada kalena waxaa kamid ah baarlamaanka Puntland oo si weyn u hor istaagay arrin uu damacsanaa madaxweynaha maamulkaasi oo uu doonayay inuu fisho xilli ay ayideen ama ay sursaag ku sameeyeen wasiiradii dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Siciid Dani wararkii ugu dambeeyay Puntland naga soo gaarayo iyo sidoo kale khilaafka cusub ee soo kala dhaxgalay baarlamaanka dowlad goboleedkaasi iyo madaxweynaha maamulka Puntland oo dhawaanahanba isbedel ku sameeyay qaar kamid ah golihiisa wasiirada isagoo oo dagaal adag kula galay maamulka Puntland kooxda lagu magacaabo Aranjan oo ay saaxiibo ku ahaayeen siyaasadda Soomaaliya qodobadaasi kuwa kale barnaamijkan ku faaqidi doona saaxiibayaal aan ku bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Hagar Dabageed ayaa khilaaf u dhaxeeyay waxa uu soo shacbaxay dhawaanahan iyadoo xogaha la helayo ay tibaaxayaan in khilaafkan uu salka ku hayo shaqo joojin uu ku sameeyay wasiirka caafimaadka maamulka Hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed arintani sidoo kale waxay salka ku haysaa in la isku qabsaday qaabka loo maray shaqaale dhawaan ay qaadanayso maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale ee qabaylaadka ay ka soo xulanayaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamulkaasi xilli Yuusuf Dabageed madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle uu doonayo in qaybta ugu weyn uu siiyo beesha uu ka soo jeedo isagu ayaa beesha ugu tunka weyn ee degta gobolka Hiiraan xilligaana kacdoon ka wada ee deegaano ka tirsan gobolkaasi oo ay uga soo horjeedaan dagaalamayaasha Al-Shabaab Yuusuf Dabageed ayaa waxa arintan ku sifeeyay in beelaha kale ee gobolka Hiiraan daga ay ka gaabsadeen dagaalada iyo howlgallada ka soconaya gobolka Hiiraan sidoo kalena uu sheegay in wix dheefa oo sidoo kale maamulka Hirshabelle iyo dowladda Soomaaliya ay siinayso gobolkaasi uu geyn doono deegaanada ay degaan iyo degmooyinka qabaa'ilkii uu ka soo jeeday isagu ay degaan waa beesha Xabaadle waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa arintani si weyn uga xumaaday isagoo sheegay in beelaha dega maamulkaasi ay u siman yihiin waxyaabaha dawladda ay geenayso iyo mashaariicda sidoo kalena uu sheegay in agaasimayaasha wasaaraduhu ay dhawaan la qaadan doonana beelaha ay u kala qaadan doonaan qaababkii loo qiimi jiray sidoo kalena maamulkan uu yahay maamul ka dhaxeeya dhammaan beelaha dega gobolka Hiiraan gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku midoobay maamulka Hirshabelle sargaal ka tirsan madaxtooyada Hirshabelle ayaa inoo xaqiijiyay in khilaafkani wali aanan xal laga gaarin iyadoo waan ay ka dhaxwadaan odayaal iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda beesha uu ka soo jeedo madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo sidoo kale beesha uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Dabageed ayna doonayaan in xal laga gaaro sidoo kalena siyaasiyiintan ay waxa ay sheegeen in nabadoonadani oo arintan dhexdhexaadinayo in xilligaani aan loo baahneen in ay sidoo kale iska soo horjeestaan madaxweyne ku-xigeenkiisa iyagoo arintani ku safeeyay in xilligan uu howlgallo ka soconayo qaybo kamid ah gobolka Hiiraan sidoo kalena ay sheegeen in howlgalladaasi loo midoobo arinta khilaafka ee u dhaxeeya madaxweynaha Hirshabelle iyo madaxweyne ku-xigeenkiisana ee dib la isaga soo laaban doono taliyo hore asluubta Soomaaliya Mahad Cabdiraxmaan oo loo garan og yahay taliyo Shub ayaa maanta hadal uu ka sheegay magaalada Baydhabo waxa uu jaaifo weyn uga geystay beesha Hawiye isagoo oo sheegay in beeshani wixii xun ay dusha ka saarayso beesha uu ka soo jeedo ee ay Raxweyn sidoo kalena uu sheegay in beeshani ay tahay beesha ugu weyn sidoo kalena doonaysa Soomaalinimada beesha Hawiye ay waxa uu soo jeeday dhaleecan weyn isagoo sheegay in siyaasiyiinteedu ay markasta jaaifo iyo dhaleecayn iyo sidoo kale aflagaado ay hawada u mariyaan beesha Digil iyo Mirifle ee ah beesha ugu tunka weyn maamulka Koonfur Galbeed taliyahana ayaa waxa la og yahay in uu si weyn uga agdhow yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen sidoo kalena waxa uu halkaasi ka sheegay in deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ay ka bilaabanayaan howlgallo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab
uuna sheegay in al-shabaab iyo beesha digli mirifle wax aysan ka dhaxaynin waxyaabaha hawada la soo marinayo uu sheegay in ay yihiin waxyaabo jaaifo loogu geysanayo beesha uu ka soo jeeda ee digli mirifle taliyahani ayaa la sheegayaa in uu aruurinayo hub badan iyo sidoo kalena dhalinyaro ka soo jeeda beeshaasi oo la doonayo in lagu sifayo deegaanada ugu badan ay gacanta ka hayaan al-shabaab oo ah al-shabaab halka ugu weyn ay maamulaan deegaanada koonfur galbeed sidoo kalena waxa uu baaq hawada u mariyay dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in laga doonayo sidii ay garab u siisay dagaalada ka soconaya gobolada Hiiraan iyo Galgaduud looga baahan yahay inay garab u istaagto wiilashan u istaagay in ay iska xoreeyaan al-shabaab waa sida uu hadalku u dhigay taliyihii hore ee asluubta Soomaaliya taliyahani ayaa waxa uu sidoo kale sii raaciyay hadalkiisa in dowladda Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la doonayo xilli kasto inay ka warhayso maamulka koonfur galbeed oo ah halka ugu weyn ay saldhigyada ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab oo xilligan uu sheegay inay gabaabsi ka yihiin guud ahaan gobolada Soomaaliya oo uu sheegay in loo joogo xilligii laga qabsan lahaa deegaanada ay ka haystaan Soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland maanta waxay surtaa ku sameeyeen codsi uu soo dirsaday madaxweynaha dowlad goboleedkaasi oo uu ku doonayay in loo ansixiyo wasiiradii dhawaan uu soo magacaabay sidoo kalena xildhibaanadani ayaa sheegay in aan la aqbali karin iyadoo maxkamadda sare ee maamulkaasi aysan jirin inay ansixiyaan wasiiro uu soo magacaabay sidoo kalena ay sheegeen in dhaarintii wasiiradaasi dhawaan la marsiiyay oo madaxweynuhu goobjoogka inay ahayd mid sharci dara gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid ayaa sheegay in arintani ay tahay arin si weyn jaaifo ugu ah baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland waxa uu sidoo kale sheegay in codsi waliba uu madaxweynaha dowlad goboleedkaasi uu soo diro ay aqbali jireen balse codsigan uu yahay mid baalmarsan sharciga uu sheegay sidoo kalena wasiiradani dhawaan la magacaabay ayaa waxa ka soo muuqday wasiirkii hore arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya waa xilligii ra'iisul wasaare Khayre waa Juxa oo la rumaysan yahay in uu si weyn ama markaa kaalin weyn ka lahaa dib u doorashada iyo sidoo kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay arintani ku sifeeyeen xildhibaanada Puntland in ay tahay arrin si weyn uga soo horjeeda oo sidoo kalena khilaafka kala dhaxeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale koox siyaasadeedkii Aranjan iyadoo halkaasi uu ka baxay wasiirkii maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Xasan Shire Abgaal oo ahaa ninkii ugu saameynta badnaa wasiirada maamulkaasi Xasan Shire Abgaal ayaa la soo ogaaday in uu ahaa nin u hanqal taagaya xilka jagada ugu sareysa maamulka Puntland waa madaxweynaha Puntland ee sidoo kalena xogo hoose uu ku helay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in uu ninkaasi doonayo xilka ugu sareysa maamulka Puntland wararkii ugu dambeeyay aad kala socoteen qubnaha TV guud ahaan wanaginta nabad